السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صوماليدا بالكسو عرورة فيسبوك كسو عرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمانتين دادك صاحبة ولا لها فانسكا دمان انت مقال كيغا اي مقال كيغا تقانو واني دمد السلامي waxaan rabaa inaan ka hadlo arin yar oo xasaasiyo maxaa la isha shalay ilaa habeen hore ilaa maanta qabsatay Facebook oo wax xasaas u sii weyn aan ahayn oo muhiim yar inaan ka hadla rabaa soo waa ina soo wada gashaan moodo joogtaan mana i maqashaan 300 ku jirta hadda soo wadan galay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maxaa la isha sanad guurada arooskayga oo aan sameystay xalay habeenkii ka horeeyay maxaa la isheeg oo hal sano ka soo wareegtay xaflad baa sameysanay anigii xaaskayga maxaa la isheeg xafladii bay dadka maxaa la isheeg inta ugu badan dadka ay hadal hayeen waxaan rabaa inaan arintaas wax yar oo maxaa la isheeg muhiim inaan idinka dhaho dadka i daawanayo dhan waxay tahay arintaas yar oo muhiimka oo rabay inaan idinka dhaho maxaa la isheeg horta xafladda waxa aan anaga dhiganaynay waxay ahayn aroos waxay ahayn sanad guuro maxaa la isheeg wax aroosna wax ma dhaamin waxay ahayd sanad guuradeeda koowaad arooskayga kale ahayd oo anaga marka is aroosna wax xaflad iyo maxaa la aroos iyo wax asmaan dhigan oo wax markaas oo muhiimna lama sii noqon laakiin waxa muhiim nala ahayd inaan xaflad dhigano oo maxaa la isheeg sanad guuradii baan dhiganay sanad guuradii maxaa la isha waqti fiican baan ku wada qaadanay waqti maxaa la isha qurux badan baan ku wada qaadanay waqti ma sha Allah oo laga sheekay baan ku wada qaadanay sida darteed waxa dhacday sawir in laga soo qaaday sanad guurada anaga aan dhiganayno waxaan sameeynay maxaa la isha toortadii baan afka isku galinay waqtiga toortada markii la gaaro waqtiyada ugu dambeysay ahayd toortada markaan afka isku galinay maxaa la isha waxa dhacday inaan is shumino oo hal mar aan islunkano taasi marka macno weyn ma ahan ma keenayso macno gooniya oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah ee isqabo ee awlaad leh ee maxaa la sanad guuradii arooskooda iyo farxadoodii iyo maxaa la isheeg meeshan u jooga inay waqti qurux badan wada qaataan weligood baa inta reer magaala iyo inta Soomaali iyo dadka dhaqankeenan maxaa la isheeg yaani aroosyada la yaqaano ay wada og yihiin in maxaa la dhahay isheeg ninka iyo naagta isqabo markay maxaa la isheeg toortada jaraan inay afka iska shumiyaan ina afka iska shumino wax macno gooniya oo maanta iyo ceeb gooniya iyo maxaa la isheeg wax madaxa la qabsado oo a'uudu billahi minash shaytaan rajim la dhaho oo maanta laga wada yaabo oo ah oo gooniya ma jirto maxaa la isheeg aniga naagtan shumiyay ama gabadha aan shumiyay ma aha gabar islaameed ma aha naag aan wada iska soo raacnay ma aha naag maxaa la isheeg oo islaameed oo maxaa la isheeg oo friends aan ahay waa xaaskayga xalaashi ahayd hadaan afka ka shumiyo intaan toorto jirno anagoo farxad ku jirno maxaa la isheeg hadaan afka iska shumino wax macno gooniya oo maxaa la isheeg oo ma keenayso ceeb gooniya ma keenayso sidaa darteed maxaa la waxa rabaa dhalinyarada qaladka aamintay faaniska ah ee walaalaha ah ee dadka Soomaalida oo dhanba maxaa la ishay Facebook wada inaan u sheego in arintaasi ayada ah ay ahayd wax markaasi inaga markaan isku imaanay ee toortada aan jirnaa hal mar afka iska shumina weligeedii Allahdaan la arki jiray dad isqabo oo dadka ama aday aroosiin ama aday sanad guur dhiganay ama aday farxad ka dambeysay inay dadku maxaa la ishay markay toortada jiraan waqtiga toortada la gaar inay hal mar afka iska shumiyaan si caadiina maxaa la ishay xafladooda ugu soo dhamaato marka waxaa la sameeyay waxaa laga soo duubay videogaas hadda waxa ka leeyahay videogaas wax maxaa la isheeg waqti saas u sii dheer ma uusan ahayn soo wuxuu ahaa videoga markaan toortay saas u jirnay hal mar baan dhac ma sina waa sii kala tagnay sidaas baa waxaa laga dhigay videoga baa inta la soo qabtaa waxaa lagu furay story oo maxaa la isheeg in waxaa laga dhigay wixii 10 daqiiqo ay yihiin oo isku soo dhawaanayaan ee hal mar afka isku haayaan ee isdhuuqayaan ee haddana maxaa la isheeg sii kala tagaan wax dhuuqmal horta meesha ma oolin maxaa la isheeg waxa sina waa anshax daro waxa idinka anshax daro ka dhigaysan dhuuqmada aad sheegaysan waxa sorto wax meesha yaala iyo wax meesha ooli karayba ma ahayn shumis yar oo aha sidaas taasna farxada naga keentay wax oo maxaa la isheeg
maanta oo saas u sii weyn nin yahow xaaskaaga maxaa u shumisay nin Kacbe iyo Madiino gubay maxaa la ishay nin Madiino gubay aniga iga dhigan waxa nin maxaa la ishay waqtigaas maxaa la farxadeed hal mar xaaskiisa shumiyay wax weyn taas ma keenayso marka halka dhib ugu weyn ee meesha ka taagan baan rabaa horta inaan hal mar idin sheego waxa jira oday maxaa la ishay waalan oo jin ku dhacay gabadha ama siiyo maxaa la horta oday jin ku dhacay jira oo waalan oo ilaahay ilaahay horta cadaabka waa bageenayaaba oo maxaa la ishay qaatumadii gabyay maxaa la ishay asagii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inuu maxaa la ciyaalka u dhali karo hari habeen oo la tirsado oo maxaa la ishay ula caytamo marka waa odaygii loo daari caliso maalin hore waxaan sameeyay runtaan ka sheegay intuu yimid aan runta ka sheegay wallaahi oo billaah inaan been idin sheegay wuxuu gaaray heer dhalinyarada saaxiibada aan ahayn oo isla soconay inuu midba maalin intuu soo waco uu yiraahdo hey assalaamu calaykum wa calaykum assalaam hebel ma tahay ha waa aniga waa daahirkii asaga ah haye maxaa u baahneed walaalo waxaan rabaa inaan arrin ii jisho maxay tahay arrintan ku jilaayo inaad samayso maxaa la ii sheeg ninka dayax liraa soo saaxiibo matiin ha soo best friends matiin ha waxaan rabaa inaan u dan sheegato si been inaan maxaa la ii sheeg ugu dan sheegato oo tiraado maxaa lahaa waxaan rabaa inaan dayax kula noolaado oo gurigaaga joogo oo anaana waxaan ku siinaa bil kasto waxaan ku siinaa ii sheeg biilkaaga iyo maxaa la ii waxa ku noolaan lahaydaan ku siinaya waxaan rabaa inaan gurigiisa inta tagtid oo maxaa la waqtiga nasiinada ama sida caadiga guriga filimka la daawanayo ama halka nigiska uu wato ama waxaas uu wato inaan sawir iiga soo qaadi oo sawirkaas iiga soo dirtay ninkaas dagaal oo igula jira saano u yeelay waxaan rabaa inaan maxaa la ii sheeg dadka aan ku ceebay inaan saas yeelo horta adeer ilaahay ku naxariisto ilaahay qaatumadaada ku soo celi ilaahay ku maxaa la ii sheeg wixii dhibka ku haysto dhib baa ku haysta ilaahay ha ka dulqaado wax kale oo ka hadlay ma jiraan arinta muhiimada ahayd oo maxaa la ii sheeg dhalinyarada qaladka fahanteen walaalayaal gabadh asxaaskayga ahayd hal mar baan issuminay waxaan sameeynay waqtiga toortada la jay ee farxadeena ahayd Soomahan muhiimada aan fiidiyoga soo galay oo fiidiyo soo duub intaas ahayd aan waxaan rabay inaan idinka jaahil bixiyo maadaama wax badan maxaa la isha isku wareerisa social media ay wadwadeen waa mahadsantiin idinkan ilaahay idin sharfo ilaahay idin karaamay khayr Allah idin siiyo waana mahadsantiin